ونولد قاعد مالتي عاد إن بس شوفتين اللي بدينه كلية تنبه تمع عد كلو دقائق موجودين دي سبحان الله محمد اسكو بحين اسكو ما اسمعتين هل قف أو ماشي كجوي مجرو أو مراتك نقول كريه مجرو قف واحد قف صومالي الشيك أو تيري ده حتى كبر مجرو أنا يلي عرفته بنا بس إن عدد كده وتم رجينيا أنا كده بجيو أرتا ما أنت وأرمي بلشيت إما أرمي السياسة ده قروين أنت سياسة ده جلس عد شرتينا أحوي بل كنا عينو كير النصنا ما أنت إن أنت الحنان بالي هذا وين وده كيور بين كل شيء على هاي نينك كوفا أنا يندلوا ونيكي قبي إن أنت واحد يقول وارهير سومالي لان سواء إساق باش إساق سومالي أنا كل قصة تبغى باش إساق إن الكسر يقول شيء وقل بدل بكسر كذا ولي من الساعة حكوا هي ومتشارتينك إن بالواحد دونية بلنا أرجع هذه يلا بك إلى هذا بالأوهين تينانتن يا وحوي بالأرجع كنا هذه يلا بك إلى هذا عندوريا إنانتن ما إذا واحد إلى حنان بالهذا اللي نكمل أطلق دبي أيام دوني داود سيو وحكينا مركي حالة ولا ترين أنت فيديو يا لقى هيا يا تيك توك تيجي كأوي سأني عاود ما تعنكو أركي أيا يقول كلفنا فيديو قصبيو بالهرت قد كان أين سد داونه ويسوي دبي يسجل على دبي ساحل كيك دبي اللي بدينه كلية تنبه تمع عد كلو دقائق موجودين دي سبحان الله محمد اسكو بحين اسكو ما اسمعتين هل قف أو ماشي كجوي مجرو أو مراتك نقول كريه مجرو ninka horta aan idinka yar daba geeyo waa nin iyo gabar is qaba oo waliba salay sheegay caruur isku leh wuxuu ka sheekeynayaa siduu gabadhiisa uga dilay ee uu wana cid ula joogin ayuu ka sheekeynayaa balada daawada lugba banaani tala niyo horta ninka waxa la igu sheegay horta ninkan aad uma aqaano laakiin reer garow waa la igu sheegay ama reer Puntland baa la igu sheegay wali ma jartanka la igu sheegay inuu laakiin ma jartanku eriga lugba banaanka ay tala ma isticmaalaan lugba banaanka ay tala hawiyaha isticmaala ama kuwa leelo ka saa koos jira maaragtay koos dhunta maaragtay habar gidirta iyo Umar Maxamuudka kuwa saa ayaa ay sheeg ayaa isticmaala lugba xagga ay tala iyo waxa marka balway ku noqon doona ninka qoladiisa oo ku noqon doona hadalkiisa hadal ma jartan ima muuqday gabadhiisii uu kale waan iska rabaa gabadhiisii uu qabay ayuu kale waan iska rabaa macnaha inaan dilaan rabaa buu ka wadaa ninkan dhaqan ma jartan male laakiin reer Puntland oo baskoonaya reer Puntland dumarka si la yaqaan oo garaacdan miya bal hadalkiisa aan ku celino ninka gabadhiisii kula si la yaqaan oo garaacay
انت قبته مسألة قانون قوانين وتعرفتي بلد الإسكابري وكان على جبل waxaan soo xasuustay markaan hadalkiisa arkay gabay eriyo ka mid ay ahayd nacfi madaxiniyuhu haddii nacasku yaalaan gabadhii nin kale uga sheekeynaya gabadhiisa isuu garaacay gabadhaydii si la yaqaanaan u garaacay buu ku leeyahay ninkan dhaqan ma jarteen male reerka ma jarteen kale dhahdo in warbaxa khaldana haystaan malaynayaa dadka ma jarteen kale dhahdo markii gooja cadii meelaha ka dagaalamayaan bay dhaqamayeen marka xaga guurka iyo waa niman guba anima aad guba laakiin markan waxaan u malaynayaa inuu ama ku dhex koray ama kuwa ku hoos jiray inuu yaan malaynayaa madaxaan ka garaacay buu kulay gabadhaydii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa weeye qofka dameerka codkiisa dhigeysan kar meeno bal codkaan ila daawada iyadana noqotay facebookayga noqotay whatsappkayga noqotay kulli snapkayga noqotay locationkayga siin jiray haddii guriga aan ka baxo maanta aan inaad daawatay marjiniya mid waa wacyigelin aan siinaya hablaha midna arrinkaba mid ka odhanaya weliba arrinkaba ka odhanaya horta waxaan leeyahay ninka ragga magaalada la jooga ee ay weliba inatan isku haybta yihiin ninka waa in waxa weeye inan buu leeyahay si la yaqaan baan u galee waa in waxa weeye feer kasta la jabiya feer gacantii dhaqaaqda waa lagu dhuftaa ninka horta taa waxaan oranaya nimanka ay inanta isku haybtayday magaalo wada joogaan waa faraya meesha kani waa nacas waa la qaban karaa waxa weeye ninka gabadhiisa uga sheekeynaya ragga wax badan ma mudna waxa weeye waqti hal la siiyo feer kasta hal la jabiyaan leeyahay hablaha mid baan siinaya dardaaran baan siinaya niyow Soomaali bariga hore waxa ku maamulay jirtay waxa la garanayo guurso waxa la garanaya adashide laakiin hadda dadka waa iswada barteen oo waxa weeye media iyo bilaay iyo waxa soo baxay oo waxa weeye labadii qof waa iska wada joogaan dadka waa iswada barteen niyow qofka aad xulanayso waxa weeye baro oo shakhsiyadiisa baro oo ehelkiisa baro oo dadkiisa baro oo diintu halka ay u taagantay baro oo qofka diinta maartay suu ku yahay baro oo maartay islaamnimada suu ku yahay baro oo qofkan ehelkiisa baro ma qoys nooc kale ka soo jeeda mise qoys caadi ah waa horta qofka hablahow aqoon geliyaan leeyahay inantaana waxaan leeyahay waraaba ku helay waana iska wax ilkaanbe ma aha oo waxa weeye waa calaf xagga alla ka qornaa guurku waxyaalaha uu alla qoray bay ka mid tahay ee ibnu aadamku aanu dooran karin qofka uu guursanayo ma dooran karo oo xagga alla ka qoran tahay oo de waad garanaysan calafka waad garanaysan marka inantaana waxaan kula iska samir dhibtu waa in yar wax weyna ma aha wax kastoo dhacaana maalmo yar bay jiraan iska samir baan ku leeyahay ilaahay baa maaragtay isha waxan qoraada uurkooyada ku jira waana dhib yar qafiifa wax weyn maaha haysnin iyo jabin ayaan inantaan intaasana leeyahay